عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجك السعودة أيا وحي أركنين مركا آدو سو سعودو فرسك آدو سو إرينايا مركا عمر بن الخطاب با يقول وحوري ننكاسي كل أنكو نو سعوداي جوكسد بولي وجوجي عمر عيدنكي ننكي أو آدو دالن أو آدو نحسن با مركا عمر سو قاري عمر هرتي سو كدعي عمر با مركا كويري منن عدو إرينيان وعبصونا آيات هاي أنكم مغان قلنا مسنين دين لقولي هاي أو دين كي بحين كروايي أو أباهن إلا عاوية آيات هاي مسنين نف بني آذنا سوقويي وحق دركو السوق دي ليبات هاي مركاسو انتا منا ميهبو يلي وحان كيمي دبوري بصراء يا كيمي دا بصراء فما قالكو تال العراق أبا موسى الأشعري هلكا أمير نوغاها هاي هلكا سانو جوجو دنبي إيقا دعي بو دنبي كا دعي محوية خمر بان عبي بيولي لأن أبا موسى الأشعري انتو قبتيبو إيقا جريبولي حدكو إمريي هاي تمهينا إيقا حيري هاي فرسنا انتو إيقو قادمو مقالة دي بصري دحمر يو حويري نكا هلا عننا oo hal la fadhiisanina oo hal la saaxiibina oo ka dheeraada buu yiri wajigaygi biga madoobayay buu marka naftaydii saddex mid bay igu sheekaysay inaan sameeyo imma inaan Aba Muusa al-Ash'ari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imma inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabayaan aan la cabo waxay cunayaan aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imma inaan adiga ku imaado iga qabatid amiirka muuminiinta marka Umar ibn Khattab ayaa yidhi radiyallahu anhu inaad ii timiday Ilaahay baa ku waafajiyay buu yidhi inaad gaalo u tagta hayeelin inaad Aba Muusa al-Ash'ari isagana intood aad u dhumata aad dishaana hayeelin mar haddaad aniga isoo gaadhay buu yidhi aniguna arrintaada haddaan shaqo ka qabanaya buu hawsha waan qaban buu yidhi warqad buu qoray warqadda nin kale Umar uma dhiibin isagii buu warqadda ugu dhiibay isagii كله أمير المؤمنين عمر أكتسان كسعوداء وكسو سلام عليه بعد كتير هذا حداد أمير كاغي أنا هاي وقد يكون قرنت هاي وحق أن كقوله أبا موسى الأشعري وقدرين يسب وقد نكا وكو كان دغيسو قابل بسو أمري وصار نقد نكي عمر ولما نكي مسيدين فرس بوسي لعب بوسي ضرب بوسي كلكم مدة ولبن أوهيي أيود هذا ما يمكن سعوتك بصرة أيوم مركا وقيم أبا موسى الأشعري أو خطبة دينية مركز أمير كي مؤمنين عمر باي صادري عجيب مستاقي وكسو سلامي ورقد أنا ويسو دي بآخر سبو كيدي ورقد دي بآخر ستي نكا فرس كاكا صار magaaladii aad la dhaxmartay marka hore la dhaxmar waxaad ku tiraahdaa la fadhiista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin oo toobad keenay toobadu addoonka Ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco dhan waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiya anna waan cafiyade Aba Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii uu sida u soo dhaxmariyay waa walaalkiin oo toobad keenay Umar ibn Khattab buu tagay Umar buu fariinta inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taadnimadu mas'uul Ilaahay garanaya dhakhtar Ilaahay garanaya injineer Ilaahay garanaya professor Ilaahay garanaya maalqabeen Ilaahay garanaya faqiir Ilaahay garanaya Abu Hurayra radiyallahu anhu gaajo daraaddeed masjidka nabiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nabigu ka baxayo ku dhici jiray ninka reer miyiga magaalada Madiina ku cusub ayaa intuu isku dul taaga oran jiray warmaad warantahay meesha ka kax markaa buu oran jiray ma wali Abu Hurayra wuxuu leeyahay wali ma waxaan la jiifay
gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar baa ii yimiday markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkaa aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garasho la-aanigama yahayn waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahdo abaa hurayra gaajaa ku hayse kaale ila soo xeraado ila soo cashee imuu fahmin aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi halkii ku soo degtay haddana abubakar baa yimid abubakar waadna bal aayadda iiga jawaab halkay ku soo degtay abubakarna ima garan oo ima fahmin aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi waa abaa hurayra baahi baa haysa 3 maalmood iyo 3 habeen afkiisa cunto ma gelin haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegta buu ayuu ka qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtaray moogta soo maaha inte soo maaha xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegsheegaaye mashruuc gaalow inakaba naguma socdoba xanuunkaas naguma socdo cuquubo meel kale ku socota haddaad u yeedhata ka waran adigu halkii beryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqlaan meleblayo balaaya ku dhacday ayaa laga alla beri jiro oo la odhan jiray balaayo baydh iminkana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo baydh xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi mu'minku balaayo ma sheego mu'minku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amaa binicmati rabbika faxadith nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxaa oo dhibaato igu sameeyey ayaa iga qabta ayaa ilaahay kaa qaban war mahayad baa ilaahay kaa qaban bal sheeg mu'minku balaayada ma sheego abaa hurayra gaajadiisii cumar uma sheegin abibakarna uma sheegin uu qarsanayey laakiin wuxuu bal siiro farsamo leh ayuu wejigaaga bal kolkay eegaan ha kaa dareemaan oo ha ku yidhaahdaan abaa hurayrow marka horeba ahli sufaad ahayde oo magaalada madiina qareen iyo qarabo kumaad lahayne waad gaajootay ibna mari ha ku yidhaahdaan iyakiina may fahmin walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu igu soo baxayba halkaasuu nebigu ka fahmay halkaa buu ka fahmay yaa abaa hurayra kaale caawa aniga ila soo cashee buu ka yidhi kaale ila soo cashee koob caanuu nebigu ugu yimid reerkiisii koob caanaa maxaa yaalla koob caanaa ku yaalla nebi allow yaa abaa hurayra maskiidkii ku noqo ahlu sufiyo dhan inoogu wadeen caawa caanaha inala cabaane waa koob caanaa abaa hurayra nebi maxamed hadalkiisa maya ma odhan karo laakiin niyaddan ka idhi buu yidhi koobkan caanaha adigoonba kugu fiicnaaye miyaa laguu dhiibaa ha ku cibaadaysatid 2 habeene ahlu sufuhuna waa raggaad garanaysidee maskiidka deganaayo ayaga laftigoogu maalmahaydin waxba cunin dee kollay nebigu kolkuu u yeedho ay yimaadaan ay fadhiistaan aduu ka odhan abaa hurayra oo caanaha qaadoo siisii ka u horeeye la siiya hemin buu laakiin nebi maxamed hadalkiisa maya may odhanayna way u yeedhay aqalkii markay fadhiisteenna sidii uu ka malaynayay meesha u dhacday yaa abaa hurayra buu nebigu uhi koobka caanaha qaad ninka ugu horeeyana u dhiib ha kana qaadin buui ilaa isagu kuu soo celiye mooyaane waa koob caanaha ragga loo yeedhana waa ragee ahlu sufa kii horeeya markaasuu u dhiibay waan eegay waa caano halkoogii jooga kii kalean u dhiibay halkoogii 90 nin iska dhe markaasuu nebigu yidhi yaa abaa hurayra ayaa hadhay ii sheeg yaa rasuulallah adigii aniga hadh fadhiiso aduu cab waan cabbi ku celi haddan waan cabbi ku celi ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meelay caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buu yidhi deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay hambadii buu nebigu cabay alayhi salatu wasalaam waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen laakiin baahidooda ma sheeganayn baahidooda iimaankaa daboolayay safwaan binu umaya ayaa cumayr binu wahab ninka la odhan jiray ayagoo markaa labadooduba mushrikiina
ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر باللغا سو نقضي تضباطن قالدنا waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nabigu waa qafasho uu xidho uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar ibn Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa toddobaatan kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahir ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan oo itu sabaan oran lahaaye Muhammad aniga soo khaarijin lahaa buu Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raacabu kay waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysan waa taqaanaa la 400 kilometer وصو سocday aalaadkan zamankan imika isku turtuurayna Facebook iyo WhatsApp iyo balaayajin ma jirin zamankaas وصو socday Madiina soo galay Umar ibn Wahab isagoo seeftiisa jeeni qaran mar ali markuu Umar ibn Khattab baa yiri Umar ibn Wahab ha shaytaan min shayatiin Quraysh weeyane seeftiina waa ka jeeni qaran ee qoorta ku sitee ordo nabiga ilaaliye buu nabiga noo ag joogo nabiga ka ilaaliye sallallahu alayhi wasallam shar oo buu socday khayr uma socday markaasuu ayaa rasuulka loo sheegay lagu yiri nabi Allah Umar ibn Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu yiri soo galiya loo soo galiya xaadad timidee buu ka yiri waxaanu imiday inankaygi oo qasiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu oo ka wada hadalno markaa uu nabigu yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hada wuxuu qabbaha Allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii Badar iyadoo tan wadano Saudi 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaad u socoto aniga kaaga warramay oo fariista adigiyo Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri haddaan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto haddaan heli lahaa Madiina intoon tagaan Maxamed aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabu ahaaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid Ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga warramay Allah baa uga warramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu Jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waa ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayn tawxiidka ay qirbu ku halkii buu ku qiray ilaahay ka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaada in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma إلهي سقى كتل يقوك تبت يد أبي لهب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. امرأة أبي لهب أيها النبي نوتمد عليه الصلاة والسلام يضع دقح سدته أبي بكر بيوتمد وهل كان فردية رسولنا واقف فردية صلى الله عليه وسلم أبو بكر رسولك لنا عسكو هيان مركز إلى ذهي أبو بكر صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي يقول صدري قبل بقرآن كم هاي ستاموت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنرك لها بيتري بقى حيسك نستوى ماذا حن بشكسين لها بيتري مركز كان نقطه أبو بكر نبي يا رسول الله ما هناك أركين ما أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادق إنه هيبل محو حكو أركا إيش وحكو أركا من لنا هاي ما يأمر كلا يبغى حكو أركا دكت وحكو مغلا ما دكت أمر كلا يبغى بانتاين مقاشو نقطة دوينة سعوت إله أمر كيسو باهنتا خالق وإله مركا إله معرفتي سوى واجب قف كسر مسلم على قرب إله ونبو قرط تصرفات عالم كله بس كله marka shayga ugu horeeya bini aadanka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaas ay ka bilaabanta lillah kun abdan lillah ilaahay adoonkiisii oo dhaba noqo khulasatul qur'an marka culimadu ka warameen khulasatul adyan waxli wixii diin samada ka soo degtay oo dhan khulaasadii waxa laga dhigay quraanka kariimka quraankii kariimkiiba la soo khulaaseeyay suuratul faatiha khulaasadii quraanka laga dhigay suuratul faatiha ayaa la khulaaseeyay labada aayadood culimadu isku keeneen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in خلاص qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi ilaahay jalla wa ala wa ka quraanka kulaha salaada waanu qaybiye anigii adoonka ayaa kala qaybsanay oo salaadu وسورة الفاتحة مقعيقة ويان سورة الفاتحة هذا صلاة بالليلة فاتحة الليلة القرآن بالليلة سبع المثاني بالليلة سورة داس وسورة دو نبي قولي والذي نفس محمد بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها إله محمد أبو ريما كدارته سورة داس سورة لمدة إنجيل لكم يسودقين فرقان لكم توراة لكم يسودقين قرآن كريم كان سورة لمدة كم جرتب رسولكم علامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وحيري قرآن كردن بمركان اغني وحاو شرح يا وسورة فاتحة سورة فاتحة وحي يدنا كسو ururtay إياك نعبد وإياك نستعين ومركو أضونك أوليهي بسم الله الرحمن الرحيم مركا ترادد الحمد لله رب العالمين مركو أضونك يرادو إلهي بالحمدني عبدي أضونك يجيب يقوم مهديي الرحمن الرحيم مركا ترادنا أثنى علي عبدي إلهي بالأضونك يجيب أماني مالك يوم الدين مركا ترادنا مجدني عبدي أضونك يجيب وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركا ترادنا إلهي بالا هذا بيني وبين عبدي تاسياني أضونك نقد حيسا الحمد لله رب العالمين مركا تري حمدني عبدي إلهي بالا أضونك يبقى حمدي الرحمن الرحيم مركا ترادنا الرحمن وعليه الرحمة ديسو أدونك إنت اللي جوكتي خلق قردن أي وذا قاعدين ويان الرحيم إن حريستي سبنك قيامنا مؤمنين تخاصك وقدقوا ويان أثنى علي عبدي أدونك وي أماني بإلهي ليهي مالك يوم الدين مركا ترادنا يوم الدين ويوم البعث والنشور مالك إلهي ملكك يطلب إسكالها يوم مركا ترادنا وحو إلهي ليهي مجدني عبدي أدونك وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركا ترادنا إلهي باكل هذا بيني وبين عبدي تاسياني أدونك نقد حيسا وهاجاga adiguna ay caabud oo adoonkaygi dhaba ii noqo anigana kaalmahaagi gargaarkaaga igu daa sidaan doonaya ii yeel sida doonaysan ana ku yeelay sirta noloshu halka bay ku jirtaa dhoofa ka raadin qaxootiha ka raadin hay'ad loo shaqo tagana ka raadin wadankeena ugu shaqo fiican waa ka hay'ad u shaqo taga
hay-ad buu hebel la shaqeeya hay-ad odaygii islaantii heblaayo hee labadoodii wiil jaamacadday qalinjabiyeenoo hay-ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa hore ahayd uu ka qaadatay yaa miskiin yaa miskiin cabdillaahi bnu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruumuu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيف أقول عيدا كنك وتا والنبي محمد أرضي ديسي أرضي كمدا حنقدلين نصرانية دو بندق وحلي وحو دين تاكو دور سكرنا هلا صيو سن السارة إسلام كأقول سعوتا وسد عن سبيل الله يقول نقضه لكن وحينا كور قبل نبي محمد صحابة ديسو إيمان كوكو عرب كما دولي الله إيمان كوكو قلبي كو دولي الله هل كو دولي الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمان كصحابة ما هم عرب كدولي الله من ما ديال لا دافسن كرماها ومن قلبي كوكو إيمان كو فريستي وين الله كو تعلق سن هو يا بقرك ما كلها إن النصرانية ده سوا قلي boqortooyadeedana kala barkeed baan ku siine markaas uu qoslay wuxuu boqortooyadaada oo dhameystiran oo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato hadii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelin buu kay wallahi ma facaltu buu darfata ayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiyeena qaado ma yeelayo boqorkii baa ku yiri waan ku dilaynaa دواب النيحدنا هيد هذا يدل سر والنيحدنا إحدى الحسنيين بيسوق يعني يكو إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكين هلان وإلهي قرقار قيس الله بلن قاد عنده كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتقان لو شهاد بيد وحبوهم أركان وحال الله السماء مركا بغركي أمر وحكو بحيي بريوا وين وصليد أو كركرايا ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqon nabi ilaahay markaas la qabto labadii nin basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliido karkaraya loogu tuuray ka warrama subhanallah isagii baa markaa la dul keenay oo xidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo lahay gaalow markaas uu ma gaaloobayo damaxaad loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halka la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoonan haysano ka hooyaya buu kay naf kaliya maaha kuma yalna fa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halka intoo la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu kay boqorkii baa kan dilgiis wax noo tari maaye haska sii deyno waayay sii daada ma kula tahay buu kay madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii deyne markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada sagii bas la shuurayst shardi buu ku xidho wuxuu hadii muslimiinta ila xidhan aadii sii deynaysid haa waan ka dhunkan hadii kala ka dhunkan maayo buu ku yiri markaas uu waxa iga dhunko markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada anoo asxaabtii nabi maxamed kamida ragga uu sii deynaya Soomaaliya waa ka dhunkan ilaa bariba jihaad baan ku soo celinay kala bixmayna ajiib asxaabta rasuul ay soo galeen Umar ibn Khattab baa soo dhaweeyay inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa la yidho raggii la socday baa Umar ku yiri Abdullah ibn Hudaafa ha dhunkan ha salaamino ha soo dhaweyn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday inakana hebel dibadda u baxay hebel dibadda u baxay hebel hayad buu la shaqeeyaayo iskugu toostay
gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan gaalada dhulkooga inaan tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa Umar kule gaal buu madaxa ka soo dhunkaday hasalaamin Umar baa yiri baluka hadiya wareystay sidee ku dhacday inaad nin gaal madaxa ka dhunkataa wuxuu iyaka ku soo daayay buu yiri si markaa uqdadii yareeda qalbiga u gashay Umar uga biyay buu yiri haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra's Abdullah ibn Hudafata wa ana abda'u bidhalika buu yiri qof kasta oo muslima waxa xaq ku abuuri Umar in maaragtana Abdullah ibn Hudafa uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yiri anigana ka bilaabayo ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonayay markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay sidii doonayeen marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladhiina aamanuu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي الذين آمنوا كوا إلهي الرميي قلوبته طاعد إلهي ذكرك إلهي أي كحصل يسو إلهي بعد ألا انتبهوا إلهي بعد إنه نصلحين يا إلهي بعد إنه يريا إلهي بعد إنه خير ميريا ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا ومن أصدق من الله قيلا إلهي بعد كوا الرمايا كله warqalbigi naas wax kala ku xasil maayo aniga macrifadadu qalbigiinu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaysta qalbigu quraanku ku raaxaysta qalbigu dhikriga ilaahay buu ku raaxaysta qalbigu taacada ilaahay buu ku raaxaysta naam nina aymada muslimiinta kamida ayaa oran jiray khamsun min dawaa'il qalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawata alqur'aani bitadabbur quraanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaam al-layl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadarru inda as-sahar iyo waqti as-sahar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wa ala lana munaajoodo wa khala'u al-badni iyo calooshaada mar walba badnaata wa kasratu as-siyam bi culmadu leeyahay inuu qofku soonkiisu bato wa mujalasatu as-salihin dadku war wanaagsano la fariisto shantaas ay culmadu yiraahdeen qalbigeeda weysa تلاوة القرآن بالتدبر كان القرآن ما شاء الله ونسك آخرين تدبر كيف أنا جمع أصحاب الرسول رضي الله عنهم لقى يا أبا هل آية القرآن سدها بينك أقول علينا يا أبو برياج وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سفيان الثوري رحمه الله آية القرآن كهبينك مركو صلاة الليل كي حد مركو قاري وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وعيسى إلهي كملينين أي كلا كل ما بنك قيامه هدو لها خير بان وطا ما خير قيسي ماها أرنتو يكوين تاي صلاة بان وطا صلاة دوال لقو بدادا يا لا شك لكن مؤمنكو هلك أمركو بنك قيامه إلهي هرجو اقصدو صلاة يسون قيسي ايقي ماي إلهي الرحمة دي صبو ما انت ايقا يغفك مؤمنكو إلهي الرحمة دادون بوليه آيات القرآن كواغ ومبري أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركو نبي أنه حنون صدو حنونك لا دعي أي نبي قال له يري صلاة دي باتاق النبي الله مركاس النبي قال أبو بكر وشيغ أمد صلاة عكب حيه عائشة رضي الله عنها وأبتاقني النبي آيات كتري إن أبا بكر رجل رقيق أبو بكر وأن قلب جلع سويان إذا قرأ القرآن غلبه البكاء هذا القرآن كأخرينا وهنتي سآيا قرآن كغالب نقطة وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبينك مرقو مسكيد كي نبي سو غلي وحو اركay inaan yar oo suurada tuur ku tukanaya qiyaam leelkii quraankiisii buu dhageystay markuu gaaray yarkii yara inna cadaaba rabbika la waaqi cadaabka rabbiga waa kii dhici doona weeyaan aayada Umar markii uu gaarayna dhulku ku dhacay Umar bin Khadaab intuu la qaaday ayaa gurigiisii la geeyay bil ku dhanbu xanuunsana xanuunkiisa meeshu kaga yimidna lama ogeyn مقداد رضي الله عنه صحابي لو رجل مقداد بن الأسود
habeenkii markuu xaaskiisa ag seexdo bay tidhi sidaasuu u galgalan jiray sidaasuu habeenkii u galgalan jiray sidaas markaasay ku tiri war maxaa la galgalan maad bugtaa maad seexatidaa markaasuu odhan jiray cabsida xasuusta aan xasuusanaya naarta jahannama ayaa hurdadii raaxada iga qaaday buu odhan jiray yakhaafuun qur-aankay akhrinayeen iyaku laakiin tadabbur bay ku akhrinayeen tafakkur bay ku akhrinayeen laga yaaba hal aayadoo qur-aana habeenkaa dhan inuu ku soo jeeday nabigeennu calayhi salaatu wassalaam waa kii abi bilaal baa u yimid ee salaaddii markay gaadhay yaa rasuulallah salaaddii baa lagaa sugayaa waa nebigoo lilmada ka daadatay maalintaas garhkiisii intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wejiga uu dhulka ku hayayna way qoysay markaasuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalaytoola aayadahan qur-aanka igu soo degay weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar ina fii khalqi asamaawaati waalardi laآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات إلى آخر سورة آل عمران آياتها سحالة يقصوا دقيب النبي يقول نك آياتها أخرية إن أنت تدبرون أن تفكرين كاسوا خسارة ورسولكم يقول تدبر صدح عمل مركز هاي سهدات قلبك خشوعات كويدة بعلماء الأدين قلبك سؤول لسيه يرضى صوت دويه qur-aanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid qur-aanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexdaa marxalo markaad ku jirtid haddii ilmadu ay kaa daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimmadu leeyihin qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilaahay alla hortagin قيام الليل وسماء الصالحين إن هبينك إلا كعو الله ينسيه كل جن كي كان الله بدس كي صفات ونكس النجارة الله لين نسوي سدنيا مي هذا الكانوا حنوجه الله يا إني أنا نقول شيء ما دين بندونا يا إيمانك وحنوجه الله إيمانك إنه يزيد دونا يا صلاة وحنوجه الله يا صلاة حقيقة إلهي نسيان دونا يا صفات ونكس وحنوجه الله يا صفات إلهي نسيان دونا يا والله وما فريسدنا وعدي أنا وأنا الكاو فريس نفتينا وعدي قيام الليل حسن البصري رحمه الله من أسمر أبوها ولكن وجهك سمور كبحايو مركز سأل يقول يا شيخ يا أبا سعيد بالقول يا أبا سعيد يا أبا سعيد واسدي بالقول دتك واتكمر وينتهي وعلى ساعدها أي هردان أيان إلهي لم نجود أبو لانكم لضوانا سوجي يقولون النور ها ساعدها دتك أي هردان كعو ولو لا برك على النقطة لا برك عتكو ولو ركعة وتر إذا نقول ضرب وتر هذا دبوا دقو مرقاس شرفاء الناس دتك مال قبيل ذا يدتك مدح ذا يدتك تجارته أي دلين هي وجهاء الناس بمجري مجلس كيسة وعلى قول يا حسن يا أيها الإمام dadku agtaada maxay ka soo doonaan baa lagu yiri madaxdooda dhan baa ku imanaysa wuxuu yiri waxay haystaan ma ka kaaftoomay waxaan haystana waa u baahdeen buu yiri waxay haystaan baan macna adduunyadooda ma qiimeeyo anigu lacagtooda ma qiimeeyo qabyaaladooda ma qiimeeyo siyaasadooda ma qiimeeyo anu ilaahay baan qaabilay cilmiga ayaan u jeestay aakhiradan u jeestay diintan u jeestay jannadan u diyaar garoobaya naar baan ka cabsanaya ilaahay xaqiisa u dhaqaaqay marka waxay haysteen marka faraha uga qaaday waxaan haystan iyaga u baahday والتضرع عند السحر مؤمنك waxa laga rabaa habeenkii saacadaha waqti saxarka ana ilaahay la munaajaat فما حي مناجات يا الله الباب كست u xidhmay albaabkaaga furan ilaahuna xariistaada u baahna waa saacadaha ilaahay jalla wa ala uu nabigu sheegay samada adduunyadu yimaada nuzulan kama yaliqu bi jalalihi markaasuu ilaahay odhanaya ayaa wax weydiisanaya hansiiye ayaa toobadkeena toobadahan ka aqbale ayaa dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe haddaan saacadaha kacna ka waramo ilaahay barino soo baahi ma lihin saacadahaas مناجات هبن أيو النبي صلى الله عليه وسلم مركو قيام كي وبلابي أيو النبي يقول لبا آيادود وكليا سدو وعل علينا أيو وقود الله رسول
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم لبدا آيادات آيادنا waxay ku jirtaa suuratul maa'ida awaakhirkeega aayadna waxay ku jirtaa suuratu ibraahim laba nabiyo ulul azmiya hadalka banka qiyaama ay ku orani doonaan ilaahay hortii tabaaraka wa tacaala ayuu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam banka qiyaama marka la joojiyo isagii hooyadii ee la keeno reer bani israa'iil oo wixii isaga dabadii yimiday oo dhan isagii hooyadii qaarkood ilaahay ay ka dhigteen ee caabudayeen ayaa banka qiyaama la keeni deedna waa ka ilaahay weydiini doona orani doona yaa ciisa ibna maryama a anta qulta linnaas ittakhidunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah nabi ciisow yaa ciisa xataa yaa nabiy allah la odhan maayo yaa rasuulullah la odhan maayo yaa ruuxullaahi la odhan maayo ciisa ibna maryamow war yaa ciisahan ina maryamow baa la odhan doonaa maadaa ku yidhi reer bani israa'iil anigiyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigto nacaabuda maadaa ku soo yidhi qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in qultuhu faqad calimtah taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsik inaka anta callaamu alguyuub maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم